marunay ka ahaayeen marwaayadu wuxuu ahayd ninka ma soo ballameen wax badan la isweydiinayo marka balse labadooda mid ay tahay ilaahay iyo rasuulkiisa waa maqlaa adiga waa maqlay markaasi ka tahay qoftu way gafroon tahay alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhamaan saaxiibadana daawanaya soo dhawaada meel waliba adduunyada ka joogtaan caawa waxaan magaalada Muqdisho kula kulmay gabar waayahan aad waliba maalmaha social media ku aragteen magaceedu waxa la yiraahdaa Ikram oo ku soo koobaya intaas ku soo koobaya magaceeda laakiin social media ku aragtaan iyadoo telephone intii si public ah oo la daawanayo la wacay nin xaajigeed ahaa kadibna si live loo furay arrin waxay ahayd social media aad iyo aad u qabsatay oo saameyn ku yeelatay dad badan ay ka sameeyeen reaction ama falcelin xoog leh ay ka sameeyeen waxaa kamid ah dadkii ka damqaday oo aad u dareemay aad uga naxay in si live gabar Soomaaliyeed si live ana runtii loo furay Ikram ku soo dhawaada Ikram soo dhawo wadawha walaalkay shukran wadawha Ikram bal maxaa ku kalif horta su'aasha ku dinaha dadkan isweydiinayaan inaad ninkaaga wacdo iyadoo la duubayo kaamirada maxaa ku kalif wallahi waxa ay u kalif boo dad badan oo waxa arkay tijaabi jaceelkaaga barnaamijkan ee ka badan oo fahansayd ka qaadayaan arkay anigoo isha xaajigaada suuqa meel aad ka doontay meesha midkan soo maraa arkay wiil meel taagan oo tijaabi jaceelkaaga ka duubayaan arkay maasha Allah wadaas waa ku soo leexday codsiyan weydiistay boo meesha kartaa haan dhahay okay oo soo dhawo dhahay marka barnaamijkii aan tijaabi maagayne wallahi waxyaala qaaran ka qaade oo lama filaan ah kulli waa aragteen wixii dhacay waa gartay dadka la yaabaan kamid aha dadka qaar waxay isweydiinayaan gabadha ma jileysay marunay ka ahaayeen marwaayadu wuxuu ahayd ninka ma soo ballameen wax badan la isweydiinayo marka bal dadka si sax ah oo uga sheegaya waxay ugu dhacay dadku xanuunka qabto kula dareemayaan hada kaliya dareemaya marka bal noo sharx wuxuu maxay ahaayeen horta wallahi boo qof jecel ma jiro ina macnaha been ama riwaayad ahaan been dib loogu geysto qof jecel ma jiro waa wax dhacay ninkina wuu joogaa hadeertaan oo caruur baan u dhalay waa sax wuu joogaa waana wax igu dhacay ninkii gabar dhalay ama la dhalatay aan dareemi karo gabar dhibka loo geystay waxa ay tahay wallahi waxaan u badantay laba caruur u joogta gabadhan sidii sheegayso aad maqlaysaan labadiina isagoo fudud macalla ilmihi ku furay xanuun runtii aad u xoog la waay waa gar adigu marka caruurta laga soo tago meeqa sana wada deganeedeen oo ninkaagu ahaa dafar sanaha waa noolay meesiga 4 sano waxaan kugu soo dhicin oo maalinta kugu soo dhacay maxay ahaayeen waxa aniga furiinka dadka furiinka la naxay laakiin aniga waxa la naxay banaa kale ba ii sheegay من فيلم والله فريق مركز لقى صوتك واحد بكدر نايت كاول وش شيء وابي يا بابا لا بد حاسن لا يملكوا يا حاسس لا انا بكوضا ما نيك وركيس اسكريحه انا اسله انا ناكل مقعد كان نقليب واب فريق او لا هاي dadweynaha waxa u muuqata furiinka laakiin aniga waxa ii muuqata naagti waxaan furiinka waxaan filawaay ma been ba waxa islahay xanaaqa ka keenay waxa waa adiga nabarka kugu yaala wuxuu ahaaba هبلايا مسوي هبلايا هبلايا يا من قبل برشة كلا دعاية من أهانتي لكن هو في الوايبة لكن ذلك فرين كي وعنا عداية وعنا عدينا وين عرورت هذا أدوها السوق كانوا يقولون يغجروها وديها نستحجروها عرورت الله كبر كيو الصومالي دو يقول دم قبين حنون كانوا يقول دريم عيان ضد بدن وأرسلايا هاي وحي ملايين مزلزل أمد روايب هي ملايين أرسلايا أي هل كان كوانا قواد دونا ودريم عياد إنه wax sax ahayd gabadhuna ay dareensiinaysay ninka ay u dhaxday in hadii uu la joogo haduu ka maqan yahay intee wacdo ay su'aalo weydiin karto arin la yaabay ahayd walaalay dhalinyarada Soomaaliyeed way ka sabarsiinayaan waxa ka sabarsiinayaan xanuunkii iyo dhibkii uu gaaray laakiin dumarku waa dhib badan yihiin waxay tir in leefar waxa iga daran naagta kale oo meesha ka soo baxday aaba iga daran marka aniga waxa culays ugu ahayd in gabar laba caruur haysta la furaaba culays ahayd laakiin iyadu waxa leedahay naag kala jirtaba ku fura kadib wallah ku furay oo si life oo ku furay ma xiriirteen ma wacdo ma xiriirkiis maxaan falay buu wuxuu qabanaya horta habeen iyo maalin misaan ahaanay xaaladayda qiyaas ka run ahaantii
oo sida anigaba ahayba warba isku mahayninba oo dadka waalidka iyo walaalahayga iyo ila tacaalayay oo sida anigaba ahayba ogaal uma lahayn carruurteedana waa la haayay anigaba ma fadhi qof maskaxdiisa xayrkas fadhiida maahan kadib waalidiintii walaalihii hadday quraan i saareen alxamdulilah caalami ilaahna qalbigayga iyo qaboojiyo qaybihii ugu dambeeyaan soo gaarnay waxaan rabnaa inaan soo xirno kelmadda ugu dambeysana aan igraan siiyo igraan maxaad halkan fariin ugu diraysaa haweenka kula mid ee Soomaaliya walaa buu waa mahadsan tahay waxaan fariin ugu dirayaa kulli gabar waa anoo kale ma ahan kaliya inay ii sheeg dhibaato gasho mar walba inay jabkeeda lagu farxaa ma la fiirsado la maadsado wax sharaf ma ahan waxaan u digayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay tusaale aniga aan ugu filnaado aniga ay ii arkaan tusaale inaga adiga u noqoto fiican marka waxay kaaga daysanayaan adkeysiga iyo dulqaadka ay kaaga daysan fahmaanay si fiican saas waa dulqaadka yani waxa dulqaad aad u lahaanin wax walba kugu dhici karo wax walba kugu imaan karo ma aan simbir inay wanaag ku soo hoydo ma ahan wax walba kugu imaan karo aniga oo kale hadda ma filaynin marnaba isma lahayn ninkayga adiga kala tagi doono ama jab ku geysan doono ama waxyaalaha qaar kuu samayn doono isma lahayn laakiin wax igu dhacay aad bay igraan u mahadsan tahay saaxiibayaal muuqaalkan wuxuu ahaa mid kadisa caawa ayaan si kadisa gabadha isku helnay waxaana runtii ii suurta gashay inaan kelmadaha aad daawateen aan wadaagno waxaan rajaynayaa dee inaad qaarkiin si sax u ogaateen inaysan jalliinka ahayn muuqaalkii dee hawa aragteen sidoo kale social media gabadha qayb ka tahay page magaceeda ku qoran oo ikraan ah ayaad ku arki doontaan goordho haddii ilaahay idmo aan codsana inaad iyadana u shargalaysaan kuna soo biirtaan ikraan hiiraan aad iyo aad magacaas ayaa ku qoran waxaan rajaynayaa inaad ku biirtaan oo dee aad u laagalaysaan meediyaha iyo dee aragtideeda iyo waxa ay qalbiga ku jira ku soo qori doontaa iyadoo muuqaalada arki doontaan aad baan mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad laagalaysaan shargalaysaan saxaabada la wadaagtaan